هذه إذا أنا كان قاعد هذه هذا المشي هو سوفيسك goobtan oo ah xaafad horseed cakaaro seeshada cakaaro kaar bixintu si fiican bay noogu socotaa ma sha Allah dadku si fiican bay u qaadanayaan kaar noo harin wali way jiraan laakiin si fiican ka badankoodana way bixeen bulshada kale oo xaafadan ku dhaqanaa waxaan ka codsanaynaa inta ay muddadii maadaama ay sii go'aabsatay oo 6 bari ay socotay 4 bari baan noo haray 4 bari oo noo haray maadaama ay xaafadeedu ku jirto xaafadaha ma sha Allah si fiican kaarka u qaatay waxaan ka codsanaa bulshada ku dhaqan xaafada inay waxa weeye kaarka u haray inta aan qaadan inay waxa weeye 4 bari ku qaataan bulshooyin kale oo ku dhaqan waxa weeye degmada iyo aagadana sidaas si lamid ah inay kaarka u qaataan waxa weeye waqti galan waxaan maanta qaatay kaarkayga cod bixinta qof iyo cod doorashooyinka lagu ballamay 15 bisha May aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maadaama Puntland 22 sano ay ku jirtay habka odayaasha wax soo doortaan waxaan ku faraxsanahay maanta inaan anagu u diyaar garownay inaan anagu codkayga ku soo doorano cid aan danaynayno aan suleenahay dadka iyo dalka wax qaban doonaan insha Allah waana aad baan ugu faraxsanahay arinta waxaan ku dooran doonaa waxay ururada markaan eegno oo aan helo marka ay soo bandhigaan waxqabadkooda waxaan ku dooran doonaa ururka aan islaahno dadkan wuxuu ka saari karaa marxaladaha dalku uu ku jiro iyo meesha wax marayaan waxaan ugu baaqaynaa dadka aan wali kaarka ka qaadan inay kaarka ka qaataan sababtu waxay tahay mustaqbalkooda ayatiinkooda kooda iyo kan ilmahooda ee baa ku xiran maanta waxaan qaatay kaarkii odaynta ah waxaan ka qaatay xaafadda horseed gaar ahaan xerada xirta waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb qaato doorashooyinka goliyaasha deegaanada dawladda Puntland waxaan yaani bulshadana ugu baaqaya inay kaarkooda qaataan waxaan maanta aad ugu faraxsanahay markii ugu horeysay inaan ka qayb qaato doorashooyinka qofkii codka ah runtii aad baan u bogaadinayaa halwadeennada ka shaqeynayso xarunta oo si hufan dadku ugu shaqeynayo bulshadoodii runtii waxaan rajaynayaa inaan ugu gudbi doono caqabadooyinkii hore oo yaani qofka aan rabno gacanteena aan ku doorano aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan yaani qofkii yaani bulshada baahida bulshada qabto wax u qabanayo inaan doorano waxaan ka qaatay kaarkaygii tuulada Sunjiif degmada Garowe si fiican baan u qaatay waxay noogu baxaysaa si fiican baan naloo siiyay kaarkayagii si habsamiya oo aan ku jirin wax dhib la'aan lagu arag baan u qaadan muhiimad weyn bay noo leedahay waayo waxaan la siiyay qof iyo codkiisa codkayaga waa ku kalsoona inaanu ku hadallo doorashada inaan ku gallo waxaanu kalsooni weyn baan u qabnaa maanta ay tahay maalintii lixaad deegaanka Sunjiif waxa ka socda kaar qaadashadii qof iyo codka dadku si fiican bay kaarkooda u qaadanayaan aad baan ugu faraxsanahay in maartay waqtigii loo camimay ama lagu talagalay ay dadkii kaarkooda ku qaadanayaan dadka reer Sunjiifna aad bay ugu heelanayaan inay codkooda bixiyaan ay qofka ay rabaan iyo ururka ay rabaan doortaan waxaan rajaynaynaa in ay maartay dadku maalinta doorashada loo asteeyay sida ay haddeertaan kaarkooda u guranayaan oo kale maalintaasna ay u soo baxaan codkooda u dhiibtaan ugu maartay meel maraan si ay u doortaan xisbigii ay rabaan inay codkooda siiyaan waxaan joognaa tuulada Sunjiif oo hoos tagta degmada Garowe hawsha aynu isugu nimana oo maalinba meel joogtay maanta ay noo taagan tahay in aan helo ay dhikaaradeedii oo aanu si wanaagsan oo habsami aanu ku qaadanay kuna helay istiid badan aanu anaguna ku galay kuna galay aanu jecelahay inaanu higsi fiican aanu ku helo higsanayna sida aanu wuxuu jecelahay iyo doorasho qof iyo cod ah sidaas aanu dadaal ugu jirnaa waqtiina ku qaadanay dhikaaradeedii haatan ku haysanaa